wasaaradda amniga oo dhisa ka dalbatay in 48 saacadood kusoo gudbiso warbixin ku saabsan xariga Mukhtaar Robow. Wasiirka amniga xukuumadda Soomaaliya Cabdulaahi Maxamed Nuur ayaa ka dalbaday kusimaha taliyaha nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka inuu kusoo gudbiyo warbixin dhammaystiran oo la xiriirta xariga Mukhtaar Robow Cali Abu Mansuur. Wasiirka ayaa muddo 48 saacadood u qabtay in hay'adda kusoo gudbiso warbixin dhammaystiran maadaama ehelada Mukhtaar Robow iyo wakiilada matalaya ay si joogto ah uga cabanayaan in aan laga warhaynin caafimaadkiisa iyo badqabkiisa, sidoo kalena dalbaday in cadaalad loo helo. Ciidamada Itoobiya ayaa bishii Diseembar sanadii 2018 Mukhtaar Robow ka qabtay magaalada Baydhabo kadib amar ka yimid dowladda Soomaaliya. Xilligaas uu isku diiwaan geliyay tartanka doorashada madaxtinimada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed, waxaana tallaabadan lagu xiray ka dhashay rabshado dad badan ay ku dhinteen. Tallaabadan ayaa lagu sheegay mid xafiiska wasiirka koowaad ee xukuumadda Soomaaliya cadaadis uu ku saarayo madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen oo la saftay madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Ridwaan Shacayb Maxamed, Social, Jowhar TV, Muqdisho. nagu soo biirto si aad noola sii joogto waxaad u baahan tahay inaad page-keena like iyo follow aad tiraahdo ama aad subscribe saarato barta YouTube-ka aynu ku leenahay Jowhar TV. daawade mar waliba waxaad naga heli doontaa warar sugan